Ciyaaryahan Daniel Alves da Silva waxa uu dhashay 6dii May 1983 waxa uu ku dhashay dalka Brazil. Xilligani waa kabtanka xulka qaranka dalka Brazil waxa uu u ciyaaraa kooxda São Paulo FC ee ka dhisan dalkiisa hooyo ee Brazil. Ma ogtahay daawade Daniel Alves inuu ka mid yahay kuwa ugu xaragada badan ee ciyaara kubadda cagta? Ha yeeshee, yaraantiisii waxaa la sheegaa inuu seexan jiray sariir ka samaysan dhagax sibidhaysan oo weliba la soo kici jiray aroor walba dhabar xanuun. Ha yeeshee, Daniel Alves duruubtaasi qallafsan marnaba kama hor istaagin riyadiisa. Wax marnaba u fududayd Daniel Alves ma jirin daawade si uu uga mid noqdo kuwa loogu jecel yahay kubadda cagta ee ciyaaraha. Wuxuu ku dhashay beer yar oo ku taala Brazil. Wuxuu bilaabay inuu beerta kala shaqeeyo aabbihii markuu jiray da'da 7. Mararka qaar si ay wax u cunaan Daniel Alves iyo walaalkii waxay ugaarsan jireen shimbiraha. Si la mid ah wuxuu u safri jiray 12 mayl oo socda si uu u tababarto una ciyaaro kubadda cagta markuu yaraa Daniel Alves. Maruu ku soo noqday Daniel Alves halkuu ku tababaran jiray yaraantiisii waxa uu yidhi hadalkan: "Way fududahay ka ciyaarista garoomada sida Bernabeu, Camp Nou, Emirates iyo weliba Juventus Stadium. Ha yeeshee, inaad halkan ku ciyaarto kubadda cagta kuna koontarosho ma aha mid fudud. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko saaxiibadayda sida Messi iyo Neymar oo garoonka ku ciyaaraya si aan u qiimeeyo siday ula tacaalaan dhagaxaantan." Markuu ahaa da'da 13 sano jirka, Daniel Alves iyo weliba 100 kale oo carruur ah waxa ay ka qalin jebiyeen xarun lagu tababarto kubadda cagta oo lagu soo saaro carruurta da'da yar oo ku taala dalka Brazil. Daniel Alves yaraantiisii ma ahayn mid aad ugu wanaagsan kubadda cagta ciyaaristeeda sida la sheego. Maalin maalmaha ka mid ah, Daniel Alves ayaa laga xaday dharkiisii caadiga ahaa ee uu xidhnaa isagoo ciyaaraya kubadda cagta. Gurigoodana ma ahayn mid u dhow. Maalintaa laga xaday dharka Daniel Alves noloshiisa ayay beddeshay. Naftiisa ayuu ka ballan qaaday inuusan ku soo noqon doonin beerta aabbihii ilaa uu aabbihii ka dhigo mid faraxsan, isagana uu noqonayo qof lagu faano oo dunida caan ka noqda. Waxa uu u tababaran jiray maalin walba si xad dhaaf ah si uu u noqdo xirfadle lagu daydo kubadda cagta. Ugu dambeyn, Daniel Alves hamigiisii waa uu ka dhabeeyay, wuxuuna noqday mid magac iyo maamuus leh oo laga yaqaano guud ahaan dunida. Daniel Alves waxa uu soo ciyaaray kooxo badan sida Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Bahia iyo weliba kooxda uu hadda ku sugan yahay ee São Paulo. Waxa uu ku guuleystay koobab aad u fara badan oo ugu weyn yahay koobka kooxaha Yurub ee Champions League iyo weliba Copa America. Si uu uga dhabeeyo ballanqaadkii aabbihii, Daniel Alves 2015 aabbihii waxa uu ku casuumay inuu daawado finaalkii Champions League ay la ciyaarayeen dhigooda kooxda Juventus, uuna ku guuleystay. Ciyaarta markay dhammaatay, Daniel Alves koobka ayuu u geeyay aabbihii isagoo qiiroonaya weliba. Aabbihii ayaa ku yidhi Daniel Alves, "Aabbo, hadda ayaa tahay nin raga." Waxayna ahayd xilligii ugu fiicnaa ee noloshiisa soo marta Daniel Alves iyo weliba aabbihii. Alves waa laacibka ugu koob qaadida badan kubadda cagta. Wuxuu ku guuleystay intuu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed koobab gaaraya 43 koob. Alves waxaa si aad ah loogu xasuustaa dhacdadii caanka baxday ee muuska ee uu cunay kadib markii si cunsurinimo leh loogu soo tuuray muus. Ha yeeshee, wuu cunay muuskii, taasoo ahayd falcelin la yaab leh oo caalamka ka yaabisay. Sidoo kale waxaa aad loogu xasuustaa tuneelkii cajiibka ahaa uu ka dhex saaray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ahayd mid xusuus lama ilaawaan ah ku reebtay qulubta jamaahiirta kubadda cagta xiisaysa. Daniel Alves wuxuu aad u jeclaa ulana saaxiib ahaa halyeeygii Muslimka ahaa ee reer Barcelona Eric Abidal. Walow uu da' u yahay Daniel Alves, haddana kama muuqato wax da' ah oo waxa uu leeyahay awood iyo weliba xirfad ka fiican da'da jiilka hadda soo koraya ee ciyaara kubadda cagta. Daniel Alves waa majaajileyste aad u weyn oo madadaaliya xiddigaha ay isku kooxda yihiin mar waliba, sida ay ka marakaceen xiddiga fara badan oo isku koox ahaayeen. Daniel Alves waa nin jabka nolosha wax badan ka soo arkay, wuxuuna noloshiisa ka soo bilaabay heer aad u hooseeya ilaa uu ka noqday halyeey lagu hirto oo dunida ka caana.